iyadoo ay jiraan dadaalo uu maamulka gobolka Banaadir uu ka wado dhinaca horumarka iyo dib u dhiska wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa haddana waxa qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda ka muuqanaya burbur aad u xoogan iyo nadaafad darro ka dhashay roobkii ka da'ayay magaalada iyo kuwa ku burburay xaaladihii uu dalka soo maray oo aan weli helin dayactir. Halkan waa wadada marta isgoyska Ceelgaab ee buundooyinka loo yaqaano Via Moscow. Waxaa ka jira burbur iyo nadaafad xumo ka dhashay biyaha wasaqaysan oo ay ku soo shubayaan xilliyada habeenkii dadka ku nool xaafadda isku raranta ee Ceelgaab iyo roobabka ka da'aya magaalada Muqdisho. Roobabkii ka da'ayay magaalada qaar ka mid ah shacabka iyo gaadiidleyda ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ku qabaan marista wadooyinka burbursan, waxayna baaqu direen maamulka gobolka Banaadir inay ka shaqeeyaan sidii wadooyinka burbursan looga heli lahaa dib u dhis iyo dayactir wanaagsan. Magacaygu bilaabaa Faysal Maxamuud Maxamed. Waxaan ka hadlaa dhibaatooyinka ka jiro gobolka Banaadir gaar ahaan wadooyinka. Maadaama annaga haddaan nahay bajaaley canshuur waa dhiibnaa, wadooyinkiina waa iska jaam ayadoo bando iyo wax walbana iska jiraan oo ku rafaasan, haddana wadooyinka sii jaban. Wax hadda u jeedin wadooyinkan si u yihiin oo macna u yaalaan. gobolka waa la leeyahay ayadku waxaan leeyahay gobolka tor shaqo fiican way qabtaan, laakiin soo xamalaysa bariyahan dambe inay shaqadooda ka jiifaan. waxaan gobolka Banaadir ka codsanaynaa inay wadooyinkan burbursan ay naga sameeyaan walaalaheen. shacabku waa shacabkooda, waxa uu shaqeynaa 4 saac waa shacabkooda. Muxudiin Maxamed waa aragtaan wadadii horta tusaale waa meeshan aan joogno waa Faras Magaali, magaalada Faras Magaaliyeed weey. saasoo tahay haddana isweydiin ma laha, ma la dhisaayo ilama dhisaayo, maanta lisma weydiinayo. waxay u baahan tahay in wax laga qabtaa. waa mid koowaad waa taas ku amaanaya gudoomiyaha gobolka Cumar Firishan ku amaanaya inuu magaalada bilicdeedii wax ka qabto. waa mid kaliya oo soo jireeneed haddii gobolka Banaadir la dhaho waa meesha Ceelgaabta, waa hooyadii meesha wadooyinka ay ka soo cuskuntay. marka waana aragtaan hadda dhibaatada ka jirto, waxa la dhaxmar yahay godadkii saxmad baa la dhaxmar laayay, godad jajab baa la dhaxmar laayay. magacay Abduqaadir Xasan Maxamed Sadiq waxa ku warama gudoomiyaha gobolka shacabkan Soomaali oo mas'uul ka ah wadadan Faras Magaali Muqdisho Amburtoor Ceelgaab Oskororan waa bari wadadii Makka al Mukarram shacab weena oo furnaa bajaajlooyinka wadadii waa burbursantahay. gadoomi moota bajaaj anshuura la qaadaya baabur anshuura lagu qaadaya. anshuurtii wadadii nan wax ku dhisooy mal wadada hadda madaxweynaha maraa korona feerisa jira leey koroni waxay dhibka keenay wadadan biyo dhacdagan way. waxaa magaalada Muqdisho wadooyinka dhexmara ay ahaayeen kuwa bilic wanaagsan leh isla markaana soo jiita indhaha dalxiisayaasha iyo bulshada Soomaaliyeed. waxaa maamulka gobolka Banaadir loogu fadhiyaa inuu wax ka qabto dib u dhiska wadooyinka iyo soo celinta bilicda caasimadda magaalada Muqdisho, isla markaana ku soo celiyo sidii hore ay u ahaan jirtay. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.